Mawduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay xanuunka ay dareento haweeneyda xilliga galmada. Dumar badan ayaa la kulma xanuunka galmada waqtiyo kala duwan noloshooda. Xanuunka la dareemo xilliyada galmada wuxuu noqon karaa xanuun marmar ah iyo mid joogto ah. Sidoo kale xanuunka wuxuu noqon karaa mid soo laba kacleeya ama mid soo laabta ayuu noqon karaa. Sidoo kale xanuunkan wuxuu imaan karaa galmada kadib iyo inta lagu guda jiro galmada. Maxaa keena xanuunka xilliyada gogasha? Maxaa yeelay xaalado kala duwan ayaa sababi kara sida haleelka ku dhaca xubnaha taran ee dumarka. Inta badanna waxa ay la kulmaan xaaladahan marka ay gaaraan xilliga galmo-goyska. Sidoo kale xanuunkan waxaa keeni kara galmada oo lagu degdego ama haweenka aan la siinin waqti galmada ka hor oo loo tago xilli jirkeeda uu galmo diyaar u noqonin oo aysan xubinta qoyin, waxaana ka dhasha in ay murxaan gidaarada xubinta taranka. Sidoo kale waxaa kaloo keeni kara waxyaabo la xiriira maskaxda iyo dareenka qofka sida walwalka, niyad jabka, qanacsan la'aanta iyo qofka haddii uu horay u soo maray xanuuno galmada ah sida kufsiga iyo jirdilka. Xanuunada kale ee soo gaara xubinta taranka sidoo kale infekshanka waxaa kaloo keeni kara burooyinka infekshanada ku dhaca afafka hore ee minka. Haddaba maxaa looga baahan yahay in aad sameysid haddii aad la kulanto xanuunadan gogasha? Ugu horreyntii waa in aad waqti badan qaadataan si uu jirkiina ugu diyaar garoobo galmada una kala baxaan muruqyada farjiga. Galmada ka hor soo faaruji kaadiheystaada. Waa in aad isticmaashaa kareemada xubinta taranka lagu qoyo. Fadlan ha isticmaalin kareemada qaarkooda xubinta ka dhigaya mid qalalan. La wadaag lamaanahaaga in aad xanuun dareemeyso si uu u yareeyo awoodda tooska ah isla markaana u beddelo hab kale galmada oo aad heshid hab cusub oo aadan ku dareemaynin xanuun siyaada ah. Sidoo kale waa in aad sameysaa jimicsiga, orodka iyo rucleynta iyo exercise loo yaqaano kinkoog oo u wanaagsan murqaha miskaha. Cab biyo badan ugu yaraan 2 litir iyo bar si uu jirkaaga biyo badan u helo. Sidoo kale waa in aad cuntaa fruitiska sida mooska, rumaanka iyo saytuunka. Ka fogow in aad muqaadaraadka isticmaasho ama meelaha lagu isticmaalo inaad fariisto sida shiishada, sigaarka, waayo waxay hoos u dhigayaan hormoonka loo yaqaano estrogen-ka. Haddii uu yaraadana waxaa farjiga ku imaan kara isku urursin. Sidoo kale waxaa jira daawooyin kor u qaada estrogen-ka isla markaana hoos u dhiga xanuunkii badnaa. Guud ahaan haddii aad sameyso talooyinka aan ku soo siiyay oo aadan weli waxba iska dareemin, booqo dhakhtarka qaabilsan xanuunada dumarka si lagu baaro loona ogaado waxa keenay xanuunka ku haya. Haddii ay jiraan xanuuno sida infekshanka lagaga daaweeyo.